نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، siduu walaalkeen inoogu sheegay cunwaan almuxaadara waxa weeye kayfa tacaamul maca gayri almuslimiin, sidaynu dhaqmi lahayn dadkii aan muslimiinta ahayn. muxaadaradaydu qayb badan baa ingiriisi noqonaysa, waayo dad fara badan aan doonaya inay fariintan ay fahmaan ayaa laga yaabaa inay ingiriisigu u hawl yar tahay. dhalinyaro fara badan baa ila hadashay, qaar fara badan baa sheegtay oo jecelaystay inay ingiriisi lagula hadlo. waan aaminsanahay inuu af soomaaligeennii uu yahay wadday cidi naga qaadi maysa kaa. laakiin cilladii waxa weeye carruurtii af soomaali guryaha kumaynu soo barin. anna af soomaali kula hadal baad tidhaahdeen. de haddaynu af soomaali ku wada hadlaa dhalinyaradii laga yaaba in waxyaabo fara badani dhaafaan. laakiin sidan xalay yidhi waynu isku dari af soomaali iyo ingiriisi. lagana yaabaa haddii aan arko wujuuhda fadhida halkan, horta soo af soomaaliga lama wada fahmayo. kulligeen qof af soomaaliga fahmayn miyuu joogaa meesha? bal gacanta taagi haddaan af soomaaliga fahmayn. A lonely brother in the back. markaa kaa hadloo doona cid u turjunta. haddii meeshii soomaaliga la wada fahmayo, dee ilaahay ingiriisi namuu badin markaa. af soomaaliga waynu fahmayna. caawa wixii ka dambeeya salaat almaqribna taasaa ingiriisi noqonaysa ee u soo fadhiisataa. waxaan doonaya marka caawa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo hawl yareeyo inaynu bal ogaano sidaynu dadka gaalada ula dhaqmi lahayn. horta arrintu waa saddex nooc. waa nin gaala oo aan kula dagaalamaynin, oo aan cadowgaagii ahayn, oo qori kuu sidanin. taa xukumkeedu waataynu doonin caawa ka hadallo. ta labaad waxa weeye nin gaala oo ku cadowad og tahay. dee taa ilaahay baa qur-aan ku sheego, dee wuxuu yidhi meeshay ku aragtaanba kula dagaalama, meeshay istaagaanba isdul taaga, hadday idin dilaanna dila. taasi waa dagaal cad. qolo saddexaad baa jirta. qoladaasoo dad aan danna kaa lahayn, kuna aan necbayn, kuna aan jeclayn. kuwaasna xukunka qolada hore aan sheegay ayuu raacaya. waxaan jecelay markaa bal inaan yaro taataabto adilo
أي نكسو قادنا إنه فهم القرآن كي السنة النبي صلى الله عليه وسلم نبي جيني محمد بن عبد الله أي قرآن كتل مامية قرآن كحلي مركا فلعلك باخع نفسك على آثار إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا آية إلهي وحو السود الشيء نبي محمد با يد وحو مروغودي وغحما ضد كان قال ده إن دينتي إلهي آمنين ووحو كدن لها آخر دوده ووحا لغا سووري النبي صلى الله عليه وسلم انت لعايو او لماغو او لا عندوف لغو تفو او هبارو ايو كدقاقا قفك هدنا وو سو نقدا مر لباد احد الاثر غير الموثوق عندي وحا ليري نينكي ابو جهل لو اورن جيري ايا النبي وحو كيري ما انت كبعد وجهك هي توسن صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم اسكجتجي لا تريني وجهك بعد اليوم بويل ما انت وحي كدن بي وجهك يان اركن هبين دا اي كمتهي اي قدعر اي تهي وروب دايو ووضع هودو اي قبودهي ايين الباب قراعي فقال ابو جهل مكا وحيري والله ما اتى هذا الاتي الا لشيء عظيم نينك ماشي مريا وحول ما انت ايا غوريس كسو ساري بولي والله لا اجيبن ما سال وحو اي ويديستو ما انت وان او ييل يا بولي نينكا وحول بها نقطه الباب كيبو فري وحل النبي محمد باب هرتاغنا صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا الحكم سيد والله الله ياك ابو الحكم واحد قلت لي لا تريني وجهك بعد اليوم ما انت وحي كدم بيس وجهك هي تسن مالين ما انت وهبيني قل لا اله الا الله وهبني ما وصو النبي صلى الله عليه وسلم قولي يسوق صوب بحي سيد نينكن ابو جهل فرعون هذه الامه وصو هنونيه مركي امني وايين اي اله يقول فلعلك وحلق يا بابولي باخع نفسك ان نفت هذا يدعو عنان سيد محمد صلى الله عليه وسلم انا دبسعتين على اثارهم ان دبسعت ضدك كانت كهرينين إن لم يؤمن هدي آمن وين حديث كان قرآن كان إلهي سودة شيء ما أثبت أوقعهم تقول النبي محمد نبي محمد مركم حين تصي قرآن صلى الله عليه وسلم وحين تصي النبي محمد هم يجيسو إنه إنه ضد كان صو هنونيه إنه حق إلهي أسو شيء أي هم يجيسو هم يجيسو مو هين إنه ضد كان عذابته كجره آيات الله وحكوا القرآن كم وكل شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم حال كيسة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نفط هذا إن قيرئي الحمانة كحنتاي هيسد المولى هيكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تحزن عليهم هدي آمن وايين وحقي أركي وايين لهك حمان المولى هيدي سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقوت المامي قالوا ذي مركا النبي محمد يعني إمي كان قال كسوق مريا سويرن شو سوقي سمريا أما مول كمريا أما كان دنا لتشوجا لقما يابا إنه أفلقادو كولي مادو لقما يابا إنه قعن كولي مادو لقما يابا إنه كصود دندانس كولي مادو لكن لقى يابا إنه وحيابا أصدق أقارا وآمن سيها وده CNN يو إن فاكس نيوز يا وحيو مالكرا وكسر دانسنا يا متشرتو وحو آمن سيهاي إن هكذا ودن كيسو تشوغا آتهاي أو دون إن الدشد سنة لو سنة كهورتو لبس سنة كهورتو هذا الشيء يعني كان عادي عين كوفا كرام كو أنا كان نتشوغا كوي ديك نتشوغا مو يعني لبس سنة كهورتو أي واحد نو يمي إن ما كي يمي تولا نوردو أي مساج في واحد ولا سعيدو واحد نو يبسننا كنيسة داس وحين نقونسا مساجد كي وهو الرئيم مقالة إذا لقد لسو نعاول وحن لنا ماركا كونفرنس بانونا إيمادان لبيو طبعا كنا وقف كونفرنس كي بانونا أوكي كونفرنس كأيار نكسمينا فن ريسيدا ويبستان كنيسة دان
جمع تبرعات بانو دين سمينا واحد عي مركا قالت هدي اوغادان إن الكنيسة دو يبسنيا ضد مسلميني نجم إيبنيا وحنو السبعين وحلا إلى هذا private sale كوا محي قفك وحكاي يبسنيا قرر ميسيد لكن واحد لما عامله سد قفك السمسار كها كاسم لما عامله سد أسوونه كاسم لما عامله وما إنه الشيء إن المسلمين هاي ما قاعد قف إنه كو يبسني ما قاعد يبان وح ما قاعد جنريك وها كنيسة دي من لعقته أورني وانو إيبسني وذا دي باي جزاك الله خير ودي النعاوية وحنو فرنا كنيسة دي بانو مساجد أبدل لي كروسكي بانو كتشبيدني كراسي دي بانو قادني كاربد عصب بانو لقني ماليه ويسدان أصميني جمعهم با افتتاحية دي أوتو أنو فرنا مساجد خطبة داكو قرن وأنا الصح حادري مقالة ومساجد كي أقوه الرئيي وانو النمي وانو تذكر انو تكيني صلاه دي marka laga baxay ayaa nin cad ba halka soo fariistay nin cad ayaa halka fariisto xaga ugu dambeeyo fadhiyo koonaha bidix masaaj ka fadhiya ninkani waxa weey waa baadarigii kaniisada iibiyay wuu murugaysan yahay way isagu muu ogeyn in muslimiin iibsanayaan in meeshan muslimiin iibsanayso muu ogeyn wuu fadhiistay wuu nasugay markaasuu yidhi hebel I'm the pastor of the church waxaan ahaa ninkii kaniisada baadarigii kaniisada baan ahaa waanu iska fadhiiso waanu u sheekaynay nin xaafido markaa noogu yimi Liibiya ayaa inta waadadii baa yidhi yaa sheekh iqra lana qur'aanka bal in yar noo taataabo xagga doonka aan la fadhiya ninkii waanu sharaxaya islaamku wuxuu yahay qur'aankii buu markaa wadaadadii buu yidhi wadaad waxa iska yaro dhalinyaro oo ragay meesha fadhiyo xageeyaan idin ka bilaaba midba meel buu qabsaday ali imraan ka bilaw suurada uu qabsaday midba intuu xafidsana ayuu qabsaday yaasiin nooga bilaw sheekh odayro Pakistaniya yiri waan kacay waxaan soo qaaday qur'aankii oo ingiriisiya haluu ka bilaababa waan u furaa uu la socda marka indhihiisu way soo baxeeno kulba aynkaas uu leeyahay kulba wuxuu leeyahay is it true wuxuu akhriya ma dhabalka ku qoran yihiin oo imika waxa digu leedahay ninkaasi wuxuu xafiisan yahay buugan oo dhan haaban kulay anna marka wadaadkii baan ku wada sheekh ba suurat maryam inoo taabo suurat maryam marka uu bilaabay ninkii baadariga indhii baa casaaday waxa soo miyuu ilmayn miyuu xanaaqay adigu ninkaas aad bisu bedelay ninkii baa uu iska tagay uu kacay intaanu ka imaan ku wari John haddii aad jeceshay birto waxaan leenahay barbecue noo kaalay wuu noo yimi isbaanay wuu imanaya wuu noo yimi waanu koonahaasaan ula baxay waanu fadhiisano waanu sheekaysano ninkan uu sheekaysanay meel allaale iyo meel nagaga tii moojaane ninku baa yidhi you guys are very very rude aad dad xun baatiin buu yidhi war maxaa dhacay wuxuu yidhi kaniisadii dadkii magaalada joogo oo dhani nafti bay ii keeneen waxay ninkii kaniisada xarashay baa tahay memberkaygii annaka meesha noo qoraa buu yidhi way lacagtii bay nagala noqdeen kaniisadii aan ka tirsanaa ninkii noogu sarreeyay la soo hadlay wuxuu igu yidhi qaladkaad maanta gashay mid ka weyn weligaa geli maysid waxaan kaniisadan dadkii maxaad u iibisay wuxuu waxaan u iibinay dadkii ku tukan lahaa memberskii oo dhan in yar mooyaane waxay tageen Afrika oo Afrika maxay ka dooneen dadka jooga Afrika ayay kristaantiga ka soo shaqeeyay ay kristaantiga barayaan buu yidhi warka waa mubashiriin dadkan kaniisada kiisan kuma ogin markaasaan ku oo Soomaali may tageen waaba uhud kulli halka joogaan weeyba Soomaaliya oo yaydin geeyban ku Soomaaliya wuxuu nation wuxuu United Nation kan raacna United Nation ka ayaa kuwan NGOs ka is qora ayaan ka wada shaqeynaayo kuwaasana la wada buu yiri ninkii marka waxa sheekadiisu bedeshay inaanu kala hadallo aan ka sheekaysano islaamku waa sax iyo islaamku qalad waa qaldan yahay marka muxuu soo tiriyay inaynu dad akhlaaq xun aynu nahay very rude
aad baynu akhlaaq xunnay oo u dabeecad xunnahay oo ixtiraam ma naqaan oo nidaam ma naqaan xaafidihina iyagu waa wada wasakh markaan toortan tago in wuxuu ku leeyahay neighbors buu ku leeyahay my neighbors are Muslims xitaa they don't cut the grass buu ku leeyahay dogan guri ka soo horbaxa caawskan yar dhulku xitaa ma jaraan maxay sugayeen inay xoola iyo riyo u yimaadaan buu yiri maxay waaradayna karin marka fikrad qalada ayuu naga fahaystaa marka sulu dumarkana waa abuse dumarka waa abuse garaysan waxaan ku yiri waxa Mareykanku iyo Canada ay cadeeyeen 70% dadka soo muslima waa dumar miyaad aragtay baa qof aqli leh oo waayeela oo intuu suuqa tago oranaya waxaan u baahan qof abuse gareeyo bali doona oo markaas inta gabadhi message soo oranaysa I'm looking for someone to abuse me can you find me someone to abuse me ma dhici karto marka waxaan ku leeyahay 70% dumarku maxay diinta uga carari waayeen haddaan abuse garayno ta halka ay noolid baan ku leeyahay dumarka ay tiri inta niqaaban marka waxaan ugu jira dumarka halkaas ku sameeyeen barbecue qaar niqaaban qaar xijaab haagsan xiran dadkan la joogana marka ana ka Soomaaliya ya afarteeda yar lixdeeda yar ana ka waka Soomaaliya waxa kale waa Lubnaaniyiin iyo Suuriyiin iyo Urduniyiin iyo Bakistani iyo Hindi iyo marka saan ku ori dumarka bal tiri inta niqaaban 20 buu ka tiri 20 ka sabaan ku ori 20 ka dumara mid qura ayaa ku dhalatay islaamka 19 kale way soo muslimeen haddaan dumarka abuse garayno maxay nooga carari waayeen maxay noogu xirnayaan niqaabka markaasuu yara aamusay markaasuu you know why sorry why markaasuu because raggiinu raganimay leeyihiin buu yiri ilaah bay iga sareeyaan wuxuu because your men have a principle and they have manhood raganimay leeyihiin waayo buu gabadhu waxay jeceshay buu yiri nin wada oo xaqiiqadu soo hogaamiya ay gabadhu jeceshay buu dumarkayga jecel yihiin marka dumarkooda ka hadlayaan dumarkayga taasay jecel yihiin anaka naga ma helayaan bay ayuu yiri taa oo annaku we don't have the principles that you have however buu yiri marka dumarkayga waa ka haysan kartaan hadaa doontaan you can take our women or you can take our wives laakiin ragga iyaga buu yiri waligiin ka haysan maysaan waayo buu marka annaku wada fadhiisano waxaanu idin aragnaa ina noo timaadeen sida dumarka iyo carruurta nooga xadaan sida dumarka iyo carruurta nooga qaadataan marka nimadii iyo cadaawadii u hayeen islaamka iyo diinta soo bandhigay waan la xishoonaynin oo la gabanaynin waan qarinaynin oo nabiga sallallahu alayhi wa sallam la murmaya oo kale lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a ma bako aaminayno إلا هالك عيرل إيو وبيال إيو يضحى نوجا تشهد كم آمين من النبي محمد بل وح أنت رامة كان أي جمر كيسو شيخين يله كادو وحي ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون والإلهية دي موحى نوتجنا ننجا بيالا والن أنتو جوحن الشيء القرآن كبير مركا جابي كتل مامين وننجا بيالا أو والن ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انت سكر دقاقين سكر نبي لهدين واني كان واني وارنا وحلا صوبري واني وحلا لغو سو قولان سدوي لغو سو قولانيه وح يعني marka nabigu sallallahu alayhi wa sallam waxa adiyada uu adkaysan jiray oo ayagoo isagoo la adiyadeynayo oo la maagayo oo la caayayo ayuu adiyadooda وأتكيسن شر النبي صلى الله عليه وسلم وحيابها كملة النبي اللي قسمين وذو أجنه هم حكملة إن قريشتي ما كحنا كان نكن أنتو كذي صور دقاقة قريجي سكسو بحو كعبده يسهرت هاجية أسوون إلهي دو ده يسنا مودو ده مين نذكر حين هل كإسكتو كنيه تاسع كمرة رد الله عين وحيد هذه المركة برهبل أو أرض تجاه نفكي رهبل أي قشين
uuskii iyo mindhiqirkii iyo dee wixii aan dadku cunaynin inta ka soo qaadaan bal keena nebigiiyo sala allahu calayhi wasalam sujuudsan oo ilaahay u sujuudsan ayay dhabara ka saareen sala allahu calayhi wasalam taa adiga weliga miyaa lagu sameeyey aniga miyaa lagu sameeyey waa maya weliga yaa allahay ninka jaarkaygu inuu dhahdo good morning mooyaane imuu aflagaadeen ma u malaynay idinka idin aflagaadeeyeen weliga yaa allahay wax xun oo gaal inta igu sameeyo magaaladan la joogo anugu ma jirto laga yaabaa mid markaan suuqa marayo oo arko adoo khamiiska xidhan ku dhahdo go back to your country ama rag gabadh xidhan go back to your country yaa laga yaabaa laakiin ninku og in meesheed inaad garanaysid meeshuu degan yahay oo jaarkaaga ah oo kula nool kuma aflagaadeynayo nebigu kuwii aflagaadeynayay ee xumaynayay ayuu adkaysan jiray sala allahu calayhi wasalam marka waxaan tusaya aan jecelayn idin tuso bal intaan u dhaadhicin sidinu gaaladoo loo macaamilo siduu nebigu sala allahu calayhi wasalam ula macaamili jiray gaaladii anoo tusaya dhowr suuradoodoo ka mida xayaati nebiy sala allahu calayhi wasalam caasho maalin nebigii la fadhida sala allahu calayhi wasalam qaalat yaa rasuula allah hal ata calayka yowmun ashaddu min yowmi uxud maalintii ghaswati uxud maalin ka xuni maku soo martay marka caaisha radia allahu canha maxay markaa ka fakiraysaa waxay ka fakiraysaa 70 saxaabi oo la laayay uu ka mid yahay muscab bin umayr oo loo soo dhiibay raayat alislaam oo intuu nin cadowgiisa soo ag taagay soo daba taagay gacantii uu ku hayay raayat alislaam ka jaray oo muscab bin umayr intuu seeftii gacanta uu kale ku hayay intuu tuuray ilan seefta waa la isku difaacay waxa la iska celiyo hadda nimka cadowgu ku soo abaaro waxaad leedahay waa niyo bal wax iska celiyo naftiisii danka muu geline wuxuu dan ka galay uu daryeelay raayadda islaamku uu leeyahay dadkan ay arkaan raayaddii dhulka taala calankii islaamku dhulka yaala way niyad jabayaan marka naftii buu horo intuu seeftii iska tuuray ayuu gacantii soo hadhay buu ku qaaday raayaddii asagoo raayaddii sidaa u sida ilaan gacan isku difaacana ma haystee ayaa taana la jaray radia allahu canhu labadii dhibana hadhay ayuu ku soo qaatay raayaddii uu la fadhiistay ilaa inta naftu kaga baxday marka caasha taasaa ku qufulan waxaa ku qufulan xamza bin cabdilmutalib oo dee la googooyey oo beerkiisii la soo saaray oo dibnihii laga jaray oo dhegihii laga soo jaray oo la rifay ayaa suuraddiisii ay hor taallaa marka nebigu waxay ku tiri maalintii yowma uxud maalin ka darin ma ku soo martay maalinta maalin ka darin weliga ilaa ma ku soo martay ayadoo marka waa gabadh yaroo masiira dacwa ma oga oo siiradii ma oga dee nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu soo balanbalayo soo bayhoofayo intaasoo goor lasoo candhuufeeyo lasoo hifayo lasoo habaarayo lasoo dilay ma oga maalintaa maalin ka daran maaragtay bay ku tiri nebiga sala allahu calayhi wasalam qaala laqad laqiitu min qawmika taa mid ka daran iga soo maray buu yidhi qowmkaaga wuxuu markaa u soo qaatay markii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu taa'if dacwad u tegay sala allahu calayhi wasalam taa'if buu u tegayo intuu markii dee nebiga sida ay abu aalib uu dhintay ay khadiije ka dhimatay ee uu waayay dee cid taageerta oo dee isu taagta wax ka celisa ayuu badiisiri magaaladan ka baxoo taa'if iska tag taa'if uu nebigu sala allahu calayhi wasalam tegay taa'iftii marka 3 nin buu ugu tegay 3dii mid walba wuu soo maagay haddii aad nebi tahay kula hadli maayo mid ku yidhi midna wuxuu oo mid adiga qofku dhaamo oo ilaahay soo durta miyuu waayay marka ninba si nebiga si buu soo caayay nebigii sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi raggii marka war haddaa i diideen bal aamusa oo dee qurayshtii warka ha gaadhsiinina aktumuu cani ii qariya aniga taa marka wuxuu isleeyahay dee hadday qurayshtu ku ogaato inaad ka soo baxdo dacwaddii aad ka soo saartay xuduudkii magaaladii maka dee inaad geshid baa kugu adkaanayso way kuu diidi doonaan kamay nixin nebigii sala allahu calayhi wasalam oo xurmaddii uu lahaa ay martidu ay lahayd may siinin ee dhalin caruurtii iyo addoommadii iyo sufahaagii bay ku diran waxay shiida ninkan nebigiioo la eryanayo oo dhagax lagu shiidayo ayaa magaaladii ka soo baxay oo cagihii ay dhiigeen oo nebigii sala allahu calayh intaasoo dhagax lagu dhufto lala waayey
nebigiiba markaa isagoo wuxuu yidhi anoo sidaa ka warwarsan talow maxaan ku odhan maka talow xaggaan dacwadda geen talow xaaladda cankee noqon doonta ayaa wuxuu yidhi anoo maraya biqarni thacaalib meel la yidhaahdo qaala farafactu raaskii madax baan kor u qaaday farafactu raasii فإذا أنا بسحابة مرة مدح كرو قاضي ضرور بابا سودك تقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل وأنا مسجد جبريل بابا كتشر ماشى عليه السلام فناداني فقال أنت فقال وحي يقولي إن الله قد سمع قول قومك لك ضدك عنك كوكو سوى شوابين إلهي ولقيسني إلهي ولسعلا هيا وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال إلهي وحكو صدري ملك بورها حكمة لتأمره بما شئت وحي أمر أسيسيدنا وفلنيا قال فناداني ملك الجبال ملك الجبال كهيستي إما السولك أقعها أي إله الله بويني فسلم علي ثم قال السلام عليكم وحي يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم وحد أدونتد فقال ذلك فيما شئت إن شئت هدي أدونتد أطبق عليهم الأخشبين لبضا أبو رضا كل الباح دون أبو يريو دوا وضا بابئين ورقوا دون وضا كم هذا هو أفير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مركع إنه كأرغوستو وضدك وحا كسميي إنه تصو قوة درده ده معنى درده ده إنه تصو وحبكم هن مكان النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول وأضياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي مكان وحيري بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء رواه البخاري وحن إلهي كرجينا يا أبوه يجري نبي محمد وي صلى الله عليه وسلم إنه كوا صلب يقول كسو صاره قال إلهي عابد ينعد كلا كدرين سبحانه وتعالى والله وحن هبا حتى دوحي قصة ميسيد مانت حتى دوحي قصة ميسيد بني آدم بانها حتى دوحي قصة ميسيد ما لنتن هيل طريقة أنك أرجوسون كأرجوسونية وأنا دقي أرجوسون ساعدوه وهي إنك وحنا بني آدم ضعيف بيننا وين أس أجنها nebigu yasaa loo soo galay oo sida loo soo dilay oo la soo shiilay oo soo cararay oo cunto aan la soo siinin oo aan cidi soo dhaweynin ayaa haddana ilaahay ayaa leen maayo waxaan doonayaa dadkan in sida ilaahay subxaanahu wa tacaala si dhaanta inuu u galo oo caruurtooda ay noqdaan dad muwaxidiina nebigu markaa sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed markaa ujeeddadiisu may ahayn inuu dadkan cadaabta ku afuufo laakiin waxay ahayd inuu badbaadiyo adigana waxaa lagaa doonaya qof muslima oo jooga wadankii qurba inaad dadkan badbaadisid bal u fiirsada walaalayaal waxaan akhriyay buug ayaan akhriyay runtii buugan warkaa waxaa la qoray 1947 baa la qoray 47 baa la qoray 1947 47kii waxaa qoray buugan waxaan idhaa United Church kaniisadaha isu wada yimi ayaa qoray qorada United Church ayaa qoray buugan maxaa ku yaala waxa ku yaala qolo walba caynkii loo gaalaysiin lahaa oo islaamka looga qaadi lahaa islaamka inta diinta islaamka laga saaro la soo gelin lahaa kristanimada qolo walba markaa gooni bay u sifeeyeen waxay yiraahdeen bal Soomaalida sideeba daba loo gaalaysiinaya waa wada muslimiin 100% waa isku af waa isku madhab waa isku arag eegyihiin cunsurka la soo gelin kara daba waa maxay waxay yiraahdeen markaa in laga sameeyo wax la yiraahdo civil war oo gurigooda meeshan ay degan yihiin daba iska reedmiyada dadkeen markaa meeshan ay degan yihiin mashaakil laga bilaabo qalaaqal iyo islays iyo isdilis iyo marka inoogu yimaadaan wadamadeena wayna soo wada xaadireen isma ogin moogti wayna soo wada xaadireen waxaanu lagu tala galay marka waxay yiraahdeen qofka marka Soomaaliga caynkaba marka loo baabi'in kara Soomaalida waxa la yiri oday guriga waa in laga saaraa odayga in guriga laga saaro
وترتيب النظام قالوا والبس مصاري سبي وقلت لقلين إن باكستان تسبي وقلت لقلين إن مركا دويش المسلمين تجوا إنديا وي وحقوا تلقلين إن عرفت حتى خليج سبي وقلت لقلين مد سبي وقلت لقلين مشكلة دي مركا وحوي إنك وإن الصوص علي مركا إن الصوص علي قال كو فكريا ودرسيا مسألة سبو حسابنا يا إلى هنا تيسي ومشي تي إلى هنا ومشي ذا إنكم مركا إنه نمي أنا قد يورو ما وهي لكن مركا كندا سومالي ده أي صاغر 1990s كي 89 إلى 96 كي بانو صودا قال مركا إنه صوغ قال لك هندو وحبي كأت كاين وحي كأت كاين إن مساجد اللسان عرورتنا القرآن أي بران دومر كودو ما حجابنا جلباب ما حدنا وحباب ما حدنا ما شرتو عرفتنا وحي كأت كاين إني مرمر مؤتمرات يرسم يانو إن أو هل كان مرين كيو كندا إن يلا قسم يو يوم مساجد عربي كل جام صومالي ديو هريسن دومر كودو جلباب كي حلن رجيو كوفي دي حلن أو يجا خميسر أي وضن كي مرقول السودة شيء مرقولة دفعات قرى dadkii muslimiinta ay naga soo horeeyay waxa baynu siinay shajaacad baynu ay yeeshay markana arkeen oo raganiyoba ka soo hadhay waxa leeyahay dadkan Soomaaliyeed soo galay maanta ee qaxoontiga ah ee maanta soo galay maynu sidooda noqono oo dumarkii Bagastaantii Carabtii de xijaabku markay masaajid soo galaan timaha intooda dama qalin jiray ayaa waxay arkeen islaan Soomaaliyeed oo jilbaab weyn sidata ma sha Allah tabarakallah oo lix yar yar oo ayaguna jilbaab xiran daadahaynaysa maxaa u malaynaysan markaa ma wax u malaynaysan markaa inay sudfad ahayd oo de gaal meesha ina keenay koode mise inuu ilaahay halkan ina keenay si inuu diintiisa u fidino يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم اسمه أوجن لقى يابا مشاكل كودك هنا كرنعي ورت واحد لقى حماضه لكن لقى يابا إلهي حكمة كوين وحوجت شيء ماشي حكمة كوين أرد اللي يرديني دين تبي فيدين شامعها إيجا واتقانان مركض هكذا ما هو لكن أنك مريكن كي كندا شامعها ووضع الصوم حبل الصومالي إنه متشرها نرتا ووضع حبل الصومالي دعوة إيجا فيديا لك شرد مركن الصومالي أنو نماذج ووضع إن حبل الصومالي إنما الصوم يئير إنما الصومالي حتى واحد شره مركز دعوة كي حتى إن كوا السوق كتير الصومالي حني دعوة مرمر بي يقولوا ده فديان مرمر بي فديان إنن بنوتمي إنن بمساسي هو مركز هو إنن توحوي هو إنن عض إنن مركز إن المسلم تابي دونسا إن المسلم تو أي دونسا مركز ثاني الدين ده ياكو براي مركز سيتري my boyfriend ومصيبة موقتي my boyfriend your boyfriend بوكو براي ها وحقو كيمي oh he's from the States مريكا كنت دقيني وأمرين مريكا ما شاء الله سنقول دبابا وانا سنتهاي السلام قبل القاضي boyfriend كان كان boyfriend هذا كان فلاسا إلا ندو إن أنت مسلم تو وهذا أنا هل كان دين كان كوها يوا مشكلة وحس بأسجع ويرى شره وصوغ علي وصومالي وده مدح أنت سول ليجي هيو فود أنت سير لك صومالي من حقول أنت لو كنت مكتب فور هلك أنت سول لك مركزان كوري وأنا مصري مركزان كوري where you from هاي كتمي مركزان I'm from North Road said yeah what did you say مركزان I'm from Las Anot Las Anot يقارني كم وقتي مسكا عموسة شفتان قري قبل محوكي يدي لاس عانو بحول لو ده هاي لوس أنجلوس
ما فوق ما فوق markaas waan hadalna markaanu de ma oran karin ninkan waa reer laascaanoode marka hada reer xanaaqina hada reer laascaanoode atihiin adigu marka okay baan ku is great waan la hadlay I don't want to embarrass him ma doonayna de ninka ceebeeyo salaadii baa loo kacay okay sister why don't you go to the brother side and let's go to the sister side and pray and we're going to pray on the brother side kii baan ku war heerde kadab go'e laascaanood ku agtaada Los Angeles waa tee markaasuu war heerde inaad iska aamiyo hadday noo muslimtay iska aamun gu yiri marka subhanallah xitaa kii caasiga ahaa ee aan diinta danka lahayn ayuu ilaahay isticmaalay oo diintii fidi wallah ka taasoo hanuuniyay horta gabadhii diinta way hagaagtay ilaahayna masuu hagaagsan uu ka dhigay wuu guursaday halkii waan u guuriyay lama bixisatane uu ka horta ba guurso halkii waan u guuriyay halkii way isku guursadeen alxamdulillah happy bay haay asiga qudis uu hagaagay ilaahay subhanahu wa ta'ala yani waa ajuuba gabadhii waa soo hadeysay subhanallah waxaynu markaa aragnaa inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala halkan inoo keenay xikmad ilaahiya xikmadii waxa weeye marka inaynu diintan fidino sidaynu markaa diinta u fidina waxaan u fidinaynaa arrimo imika waxaan hayaa dhowr iyo 10 daliilood aan ku tusaya sidoo nabiga gaalada la macaamilay asagay maagayeen oo wax ku xumeynayeen hadana soo wala macaamilay nabiga sallallahu alayhi wa sallam ko ta ugu horeysa markay timaado gaal la mucaamil إذا القرآن يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم كوين إلهي نودي لي ماها كوا الدين تدا إن دين تنا نقول آمني إن حمينين كوا سما كوا نضج على منه كوا نضج على رجع قرية ينوسي تدا هو كينوسي تدا كوا سوا ميل جونية أنا وحن كهذا يضل كان ينرد جنة سيدابين وقصوا حنوننا كو وأخلاق الإسلام حسن الخلق والله حسن الخلق لا يعادله شيء أخلاق وناكسن أن يضكن كلام معامله وحلم لي مجرته نبينا صلى الله عليه وسلم وكي إنه شيء بقول حديث النبي إنه شيء أحاديث آد وفربضن بو إنه شيء وينقول دار ما حسن الخلق وحي لكم يوم القيامة إن أقربكم إلي يوم القيامة إن أحبكم إلي يوم القيامة وأقربكم إلي مجلسا ضدك يقصوا يوم القيامة وحوية ضدك أخلاق ذا وناكسن وحديث كلمة حكولي قفك أخلاق ذا وناكسن وحلا ترتمى ولا ميل قارة ولا مثل لا قارة ميل كقائم الصائم قفك هبي ودنا تكني ما لنا صوما حسن الخلق قال كلمة مركا وحنو كلا سارين إسلام كي مسلمينتي markaad akhlaaq xun aad tustid oran maayo qofka akhlaaqda xun waa hebel laakiin waxa weey xoranaya islaamku uu akhlaaq xun yahay marka islaamkiiba duraynaysa halka dadkii ka soo hadeyn lahayd laga yaabo inuu ilaahay bartanku keenay si dadkan u hanuunisid adiga oo soo u noqonaya in dadkii diinta ka sii eridid dad fara badan caynkaas inuu nagu jiraan gabadh baan bari Somali ذاك معامل لكن ما أهين لكن المسلمين بأهين قبل بالله يقول ياري كال قريبة هي 2003 قبله نيم بقى يوم حجري ونيو قبل إذا لا تشوك تحاس قبل يا حاسب يا لا تشوك تا إن الإسلام كوحكاو ونقنعين كري ونبل نوك حاله قبل دي بان قري بان ويمي شهبان ولا سيء ولا سوفر يسيء ولا سوفر فرس أنا جي نينكيدي أنا جي نينكي قري قال هم sorry gabadhii markaa diintii islaamka ayuu nooga sheekaysay caynkii interest ay ugu heshay diinta islaamka ay daytiliba baan waxay u kalifeen diinta islaamka bartaan idin sheegayaan way noo sheegtay maxay waxay tiri waxaan ahaa gabadh kristaan laakiin diinta kiristaanka ku dhaqmin Kuwait baan tagay bay tiri Kuwait baan tagay markii aan Kuwait tagay
ayaa dadkii masaajidka may ku soo qolqolayaan waxaan what are these people maxay sameynayaan subaxdii way qaylinayaan duhurkii way qaylinayaan afternoon-kii way qaylinayaan habeenkii laba goor bay qayliyaan what is this Saturday that's called adhan baa la dhahaa bay tiri ayaa lagu yidhi waa adhan what is adhan is a call for prayer dadka salaada loogu yeedhay so everybody who's going mission way tukanayaan ha waxay tiri waxaan xasuustay goortii ugu dambeysaan kaniisad galay waxayd Christmaskii oo da kaniisad ma gala anugu waxay tiri qaraar baan gaar waxaan ku yidhi is there a church in Kuwait ha baan idhi kami ku tala ina kan waa leegeeyay khiirad baa igashay bay tiri markaa kaniisadii baan ku yidhi ninkii dadkii meesha joogay waa inaynu dadka diinta dadka wax kaas markaa dadkeedii carruurteedii faamiligeedii waa inaynu kristaaniga barra kristaantiga waa inaynu barra waa inaynu ka dhaadhicinaa carruurteennii diinteena barra waxay tiri carruurtaydii iyo ninkayga ku kalifay inay bible classes qaataan oo kristan haagsan noqdaan anigiiba habeenkii waxaan akhriyay bible kibaan akhriyaan laakiin way qancin weyde ninkaygii iyo carruurtaydii aan bible class soo qoray ayaa waxaan yani ku oran kari waaye waxaan imay qancina ka hara waan u daayay bay tiri Canada ku soo noqon markaan waxaan saa gabadhan way bisashay saarden maxaad u aamini weyd ilaahay inuu kadigi jira ma aaminsantay waan aaminsanay inuu nabi maxamed nabi uu yahay ma aaminsantay yes ashhadu markaa oo inuu bay qabsatay gabadhi heq bal aamusi gabadhan gabadhi baan aamusin kari weynay markay aamustay way intay shantadeedii dhufsatay ayay tiri the only reason that I will never become a Muslim is because of you, because of people like you, because of your manners. I will never become a Muslim. Wiska baxd. Diinta waxa iidiiday way tiri dadkiina in sidiina noqdo ma doonayo. In akhlaaqdiina aan yeesho ma doonayo. Wiska baxd. Halkiiba nagu dibasa gabadhi. Wallahi billah. Inay gaalnimo ku dhimatay. Inay ashahaadatay. Waxaanu ka ognahay ma jirto. gabadha diinta maxaa u diiday waxay kala saari kari weyday qofkani waa qof isno akhlaaq xun diinta islaamka laakiin ila xusn khuluq ay dadka faraysa oo ilaahay baa bari wa innaka la ala khuluqin azim markuu nabiga amaanay sallallahu alayhi wasallam wixii nabiga qura nabiga lagu amaanay waxay ahayd inuu nabigu akhlaaq wanaagsan yahay marka ta ugu horeysa waxa weeye inaad akhlaaq yeelatid akhlaaqdii marka waa xusn almucaamala مثلا اسكردان dadka muslimiinta waxa weeye الدين المعامله waxa la yiraahdo حديث وحديث موضوع ضعيف لكن waxa weeye كلمه macnaheeda ayaa wanaagsan macnaha kelimada ayaa wanaagsan oo diintu waa muaamalad الدين معامله talabaad aynu sameeyna waxa weeye aynu iska ilaalinayna inaanu ayaga aflagaadeynin oo aanaynu caayin dad badan baa u haysta inaan qofkan aan la deganahay gaalka u proof gareeyo in buugiisu qaldan yahay inuu buugiisu oo kristanku waxaan aaminsan in qaldan yahay ayaan kala dhicinaya halka adigu haddaad xagga u baydid runtii laga yaabo inaad qaar qancisid laakiin qaar fara badan way ka yaacayaan waayo qof waliba wuxuu aaminsan yahay tiisu inay sax tahay ina la ixtiraamo qofku wuxuu aaminsan yahay waa meesheeda waa inuu dadka baranacaynkan u ixtiraamo maxaa markaa adiga laga doonaya waxa laga doonaya islaamku quruxdu uu leeyahay iyo wanaagu uu leeyahay muuji waxa kale ka hadlay oranin waa maxay Jesus the Father the Son the Holy Spirit saddex ba hadana mid ba hadana saddexa waxa ha gelin badda ha gelin حسن الخلق يئن الدين أتكلا هذا الشيء أنا تيسن أفلقادين وأنا بعاين تيسن إن أنا بعاين حضين الله بضع سوق كم متدنه والله فربضا حقا أسوء شيء سنية أما الدين كانوا يكون عيان ويقاضن عيان وأيجي بمركان القرية السفراء
الرسل دينتي النفافة هي أو فيديا أما احترام القرآن نولانيا دينتي عدة فافاهي سمرك اللي يمادو واسكنا دي مسلمين رنتي ماها كل رتي إسلام كوام مسلمين عصب دكتور بلال فيليبس ومسلم عصب يوسف أستس دكتور بلال فيليبس محو نوسمي وحو نوفر جامعة بنوفر جامعة إسلامية أونلاين أو ميشو تشوفتك آخر سنة كتير الدين تكون برك كتير في إنجليزي هذا يصير إن كريدك لقصينا يوم يوسف أستس وأن المسلمين صقونا محو مسلمي مركم مسلمين تلفزيون بو نوفر قناة تلفزيون دين تفيد صفر إن حسين جي وحفر الله هذا دار الله هذا إن دار محل الفقير يم البيت الفقير حبوا فري كفر إن إندونيسيا وضدك مسلمين صو مسلمين والدين تكفى فيه كون مسلمين وصور دويه إن محمد عبد الرحيم جرين قال هذا أيارو دين توفي دس أيو يسوونه بلابة يعني ضدك دين إنه ضدك دين تفيدنا إياه وقار مسلمي وح مسلم هذا كل شيء إسلامك أو دين تفيدنا إياه ويريه أدب ويريه لقيا مركا عدو إن قف الدين تنو أخردي ومركا وقنعه وفيديو أصله وكون نقضاء صدقة جارية نبي صلى الله عليه وسلم مركو علي بن أبي طالب ويرولي وار أرض دقال فقال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا مو احنا دقال إلا أنت إن لم نقنيان نبي يقول لله لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم وفي رواية مما طلعت عليه الشمس حلط دقال لهم بيقول إن قف قلك وقصوا هذه أي كفضل بدن حمر النعم يعني جيل عصعص وفر بدن marka waxaan u baahanay inaynu dadkan inaanaynu habaarin nabiga sallallahu alayhi wa sallam ya rasuulullah gaalada habaar in dadka habaar la ma soo dirin buri in dadka soo hadeeyay baa la soo diray rahmatul alamin la soo diray maani hada ursil aniga tay dadkan habaaro la ma soo dirin inaku marka aynu diinta dadku soo hanuunin